Albania oo rabbitkii u horreysay u magacowday xil dowladeed. Dowladda Albania ayaa noqotay wadankii u horreeyay ee guud ahaan caalamka oo dhan oo yeesha wasiir rabbit ah. Wasiirkan oo ka samaysan fiilooyin iyo koodhadh ku shaqeeya garaadka macmalka ah ayaa magaciisa lagu magacaabaa Diela, oo ah magac u taagan ilayska qorraxda marka loo turjubo luqadda Albaaniga ee wadankaasi Albania looga hadlo. Wasiirkan ayaa ka mas'uul ahaan doona dhammaan xisaabaadka qaranka sida uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Eid Rahman Khamiistii shalay ahayd. Sanad ka hor, ra'iisul wasaare Eid Rahman ayaa mar ku kaftamay in wadanku uu dhowaan yeelan doono wasiir artificial ah, balse qofna ma malayn karin in ay sidan dhaqso ah ula soo degdegi doono. Shirweynaha xisbiga Socialist-ga ee dalkaasi ka arrimiya oo ka dhacay caasimadda Tirana ee wadanka Albania, kaasoo lagu kala qiimeynayay wasiirada xilka ku fashilmay iyo kuwa waxqabadka muujiyay, ayuu ra'iisul wasaare Eid Rahman dadka ku baray wasiir Diela, asaga oo yidhi Diela waa xubintii u horreysay ee golaha wasiiradeena ka mid ah, taasoo ah Robert balse ku shaqeynaysa garaadka macmalka ah. Master Eid Rahman oo sii hadlayay ayaa sheegay in go'aanada qandaraasyada qaranka laga ilaalin doono dhammaan golaha wasiirada marka laga reebo gacmaha wasiir Diela, kaasoo ah xisaabiyaha guud ee qaranka. Isagoo sheegay in shaqadanu ay noqonayso mid si tartiib tartiib ah loo hirgeliyo, balse ka dhigaysa wadanka Albania qandaraasyadiisa mid boqolkiiba boqol ka nadiif ah musuqmaasuq iyo wax isdaba-marin. Diela ayaa horey loo baray muwaadiniinta Albaaniga isaga oo ka shaqeyn jiray platform-ka elektarooniga ah ee lagu magacaabo e-Albania, kaasoo ka caawinaya muwaadiniinta dalkaasi in ay helaan dhammaan adeegyada dowliga ah si dijitaal ah. Diela ayaa loo ekaysiiyay gabar dhalinyaro ah iyadoo loo labisay dharka hidaha iyo dhaqanka ee wadankaasi Albania. Diela ayaa ku sameyn doona qiimeyn dhammaan qandaraasyada iyadoo u madax bannaan in ay caalamka meesha ay rabto ay ka soo kiraysato shaqaalaha kartida u leh shaqada. Tanoo meesha ka saaraysa faragelinta iyo musuqmaasuqa ay maamulku ku sameyn jireen tartanka qandaraasyada. Ayaa qiimeyntii ay sameysay hay'adda caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee World Transparency International lagu ogaaday in ay horumar ka sameysay la dagaalanka musuqa iyada oo soo gashay kaalinta 80aad. Haddaba, dowladeena Soomaaliya maxay ka baran kartaa tallaabadan ay Albania ku xakameyneyso musuqmaasuqa? Ra'yigaaga nagula wadaag qaybta hoose muuqaalkana meel dheer noo gaarsii mahadsanid.